السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل هادينا مهتدين. إله نقدك كوها نونسان دادكنا هنونيا دمان دادكا سوماليات برنامج كقفاعو كدقيسان يا راديو بورمي كنا داوانا يا سومالي كنديان تي في برنامج كقفاعو مانتو أمالين جمعاه بيش فبراير 2420 waxaan barnaamijka ku soo qaadanayaa ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka gobolka Awdal oo aan la hadlayo waxaan ummadda Soomaaliyeed kala hadlayaa awalan in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto tahay mid isku baahan mid maanta loo baahan yahay midnimadeeda inay ka shaqeyso waxaan ummadda Soomaaliyeed xasuusinayaa inaynu nahay istiraatiijikali meeshaan ku naano dad fiktama waxaynu leenahay cadow far badan waxaynu leenahay bad waxaynu leenahay dheer waxaynu leenahay macdan waxaynu leenahay baasiin waxaynu nahay dad indhaha ummadda adduunyada meel walba lagaga hayo cadowgeennuna far badan yahay marka maanta waxa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay midnimada ku dadaasho oo la mideeyo Soomaali meel kasta ay joogto la iskuna gargaaro in midnimada laga shaqeeyo waxaan la hadlayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh waxaad ogtahay heshiiskii madooba ee bisha January kowdeedii ka dhacay dalka Itoobiya oo ay wada galeen Somaliland iyo Soomaaliya heshiiskan oo ahaa heshiis madow Soomaali dadka cadawga ana heshiis farxada haddaba mudane madaxweyne waad hadashay wax badan waad qabatay intii dalka madaxweynaha aad ka ahayd hadda waxaa la qabtay waxyaalo fara badan oo aad iyo aad lagugu amaanayo oo ay ugu horeyso deyn cafintii oo ay ku xigto hubkii waxaan madaxweyne ka codsanaynaa dawladnimadu waxay u baahan tahay saddex awalan cadaalad run iyo amaano waxa laga baahan yahay maanta Soomaali inaad isku hayso oo cadaalad ugu dadaasho maalin dhaweed waxaad magacawday safiirada dadka qaar baad ka tagtay qabiiladii kamid ah waxaan rabaa inaad cadaalad ugu dawaasho oo aad waxay xaq u lahaayeen aad siiso waxa laga rabaa in dadku sida ay ummadda Soomaaliyeed u miloobi lahayd ay wax u wada yeelan lahayd inaad ka shaqeyso waxaan rabaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya inaan xasuusiyo in madaxweynuhu yiri badda Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliya inta leegtaa kala ma bixin karo madaxweyne adiga oo sidaa yiri waxaanu rabnaa waxa shalay magaalada Muqdisho soo gaaray Awdal State Movement waxay ahayd dhowr bilood ka hor waxay joogeen dalka Itoobiya waxa ay heshiis iyo wada hadal iyaga iyo xildhibaanadii la socdayba la hadlayeen oo wada hadal u socday dawladda Itoobiya waxaan rabnaa in ummadda Soomaaliyeed dadku ogaadaan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka muslimkii fulana uu noqon karaa bakhaylna uu noqon karaa laakiin beenaala ma noqon karo dadkii aad ogeyd ee Itoobiya joogay xildhibaanadu in iyadoo Awdal State muddo soo socotay aanu ka hadlaynay midnimada ummadda Soomaaliyeed aanu Soomaali oo dhan ka shaqeynayna in la isku keeno in Awdal State Movement shalay xildhibaanadii dawladda federaalka Soomaaliya qaar badan oo kamid ah airportka yimaadaan shacabkii Soomaaliyeed in dawladdaadii soo dhaweysay looga dhigay in shacabkii Soomaaliyeed yaaban yihiin kuwii shalay isla Itoobiya joogay Musabbixi oo madaxweynaha Somaliland heshiis buu Itoobiya la galay adiga dhowr jeer waxaan ka maqlaynaa adiga oo leh Itoobiya wadalan walaalahay haddii ay ka tahay Muuse heshiiska muxuu u saxeexayaa cadaaladii ka fogtahay mudane madaxweyne waxa laga rabaa Muuse maxaad ku haysataa kuwii shalay Itoobiya la joogay ilaa waxbaanu la rabnaa inaad iyaga Muqdisho lagu soo dhaweeyo Muuse oo maamulkii Somaliland haystana aan maanta loo arko inuu yahay nin dhulkii saxeexay adiguna aad leedahay Itoobiya dawladda inay la hadasho ayay ahayd qadiyadu maqadiyad maxaa ay tahay ee Muuse ula saxeexayba mise waa qadiyadan rabna bulshada Soomaaliyeed inaad u sharaxdo fikirkaagu muxuu yahay wax qabadkaagu muxuu yahay sidaad rabtaa Soomaali inaad u madayso ujeedadaada dawladnimo maxay tahay
مدن مدحوينه waxaan rabaa inaad noo sharaxdo maxay tahay istiraatiijiyada ku yaala waan arkaynaa politically sida aad u dadaalayso sida aad u hadlayso sida aad diblomaasiyadda u wado laakiin maxaa intaas kaaga dambeeya anagu ma garanayno waxaanu arkaynaa dawladdaadii oo la shir baan u qabanayaa gobolka awdal dadkii deganaa shirkii loo qabanayayna dadkii la rabay in lala fadhiisto la rabay in la isku keeno ma arkayno ummadii Soomaaliyeed waxa aad maqlaysay oo arkaysay in banaanbax Muqdisho lagaga dhigay oo aad arkayseen shacabkii kaceen waxa banaanbax sidaas oo kala dhacay magaalada Boorame waxa lagu lahaa Aaba Xasan waxaan u fadhinaa maxaa uu noogu bedelayaa Musabiixi heshiis buu la soo galay heshiiskii adigu ma waxaad rabtaa inaad heshiiska magacaaga lagu bedelo bas waxaad rabtaa gobolkii awdal iyo dadkii inaad wax la qabato oo aad midnimadii ku dabaasho oo maamulkii aad ku soo celiso oo 18 gobol dawladda federaalka Soomaaliya noqoto mise waxaad rabtaa mudane madaxweyne sida xamar nooga muuqato banaanbaxa iyo hadalka iyo siyaasadda hadalka ma rabno mudane madaxweyne waxaanu rabnaa in mowqifkaagu noo cadaado dhammaan dadka Soomaaliya barnaamijka gufaaco ka dhageysanaya raadiyo Boorame kana daawanaya Somali Karen TV waanigoo tafaqatiraha Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan